maalinta labaad ee horyaalada Somaliland oo ka socda xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa kulan xiiso leh waxa uu dhex maray kooxaha Goodir ee Berbera iyo kooxda koobkan difaacanaysa dowladda hoose ee Burco. Kulankan oo la filayay inuu noqdo mid aad u xiiso badan isla markaasina labada kooxoodba ay soo bandhigeen awoodooda ciyaareed ayaa waxa weerar celis badan kadib goolka koobaad dhalisay kooxda dowladda waxaa goolka koobaad dhalisay kooxda Goodir ee booliska ee magaalada Berbera oo qaybta hore ciyaarta ku hogaamisay isla markaasina ku soo dhameysay 1 gool iyo waxba. Inkastoo goolka halftiisa uu khaladkiisu lahaa ciyaaryahanka goolhayaha ee kooxda Sacad Caynaashe, taa beddelkeedana uu sameeyay goolal badan oo ay kooxda Goodir sigtay inay dhaliso. bilaabashada qaybta labaad ee ciyaarta oo muddo socotay waxaa kooxda Goodir ee booliska ee magaalada Berbera u suurto gashay inay goolka labaad ee ciyaarta dhaliyaan. Kooxda difaacanaysa horyaalada Somaliland ee dowladda hoose ee Burco waxaa laga dareemayay maqnaanshaha ciyaaryahanadii hore ee sanadkii hore koobkan u qaaday oo ay ka mid ahaayeen ciyaaryahan Qoor oo xagga weerarka uga ciyaarayay iyo dhexdii Cabdixamiid Thomaska, kuwaas oo aan kulankan ciyaaraynin. Macalinka kooxda dowladda hoose ee Burco ayaa isaguna waxa uu soo bandhigay ciyaaryahano cusub oo da'yar badan, kuwaas oo koobkan ku cusub horyaalada Somaliland, isla markaasina waxaa laga sheekeynayaa inuu tababaruhu sii qorsheysanayo tiimkii bedeli lahaa tiimkii xilligaasi qaaday. Inkasta oo xiriirka dhexda kooxda aad moodeysay inuu goonaa, haddana dhanka weerarka kooxdu waa uu hagaagsanaa. Kulanka kale ee soo socda waxay la ciyaarayaan kooxda dowladda hoose ee magaalada Burco, kooxda wasaaradda beeraha ee gobolka Awdal, waxaana rajeynayaan inay kulankaasi soo baxaan si ay fursad fiican u siiyaan kooxaha ka socda gobolka Togdheer oo 4 ah, kuwaas oo haddii ay wareegga xiga u sii gudbaan u sii dhaweynaya inay tagaan finalka iyo weliba semifinalka koobka horyaalada Somaliland ee sanadkan, si koox ka socota gobolka Togdheer ay u tagto finalka koobkan. Waxaan eegi doonaa kulamada dambe ay ciyaari doonaan, ciyaaraha ay soo bandhigaan iyo sida ay ku dhamaadaan.